madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ay wehliyaan xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan waxa ay la qaateen golaha deegaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan golaha deegaanka degmada Dinsor oo wareyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay dib u dhiska golaha deegaanka horeeyo oo inta haween badan ayaa naqadeen saan umaleeyo Soomaaliya laakiin inta xaaminiin haddii haweenka oo leeyahay oo qof kasto oo lin taagaya anoo isku qayb galaan maamulada iyo meesku booqan leeyahay hambaliyeeyo taageero haddii Dinsor maamulshe fadhiid naqado oo si la rabo naqado waayo marka haweenkii oo adlig handal taagay ma naqdo doonta in oo sidii leeyahay handal taagay in naqano marka ma isugu baahanya inoo maamulkan Dinsor xoogii iyo awoodii iyo dadnimadii siidaan aadi intaas kadib madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inay qorsheynayaan daadajinta maamulka runtii sharaf ay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno caleemasaarka degmada golaha deegaanka degmada Dinsor oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada iyo 22 xubnood ee degmada Dinsor loo soo doortay caleemasaarkooda inaan ka soo qayb galno aniga iyo intii ila socotayba sharaf ay noo tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay gudoomiyihii iyo golihii deegaanka 22 xubnood hambaliyo dadka reer Dinsor hambaliyo maamul fiican oo nadiifa oo adduunyada dhan laga taageeray oo dowlad goboleedka koonfur galbeed taageertay oo dowladda federaalka taageertay oo international community taageereen oo cid kasta oo maqashay ay ku faraxday yaa samayseen waxaan ka mahad celinayaa sida ugu dhabar adeegteen aad iyo aad u mahadsantiin waxaan kaloo rabaa intaan ugu mahad celiyo odayaashii dhaqankii inta laga sheegay oo 4 oday ahaa oo soo xulay golaha deegaanka oo taladaanadi qaatay sidaan ola hadalnayna u fuliyay bulshada iyo degmada Dinsorna u daneeyay oo u dadaalay inay u soo xulaan maamul midaysan oo isku xiran oo dhameystiran oo gabdho iyo wiilalba u siman yihiin oo dalkan iyo deegaankan u adeegaan 3 oday 4 odayba aad ay u mahadsanyihiin runtii waxaa la sheegay degmada Dinsor baahiyaheeda waxaa lagu soo koobay 4 laakiin marxaladda maanta lagu jiro Dinsor baahideeda 4 iyo 5 iyo 10 iyo kulli waa ka badan yihiin Dinsor baahi badan ay qabtaa oo uga baahan tahay in lagu garab istaago ugu horeyso isbitaalkii biyihii dugsigii sare amnigii dhamaystirkii ciidamihii reformkii lagu suubin lahaa oo mushaarka loo heli lahaa iyo inay helaan iskool dugsi sare kala helahane dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe iskoollo lacag la-aan oo waxbarasho firi ah oo ilmaha intay aadaan ay tegi karaan inay helaan annaga runtii masajkaas waa qaadaynaa dowladda koonfur galbeed meel kastana waa gaarsiinaynaa doonarka iyo international communitygana waa gaarsiinaynaa annaga dowlad ahaanna waa u istaagaynaa dowladda federaalkana waa gaarsiinaynaa cid allaale cidda gacan nagu siinayso baahidan maanta taallo degmada Dinsor inay wax ka qabato maalinkan inta ka noqono laga bilaabo waa u istaagaynaa waxbaana ka qabanaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan yaanan u samayn doonaa runtii waxaan laga hadlayo oo la sheegayo waa wixii ugu muhiimsanaa oo adeegga bulshada ah baahida bulshada adeegyada bulshada oo in la dhameystiro u baahnaayay ahayd oo laga rabay dowladda oo annagana aan ballan qaadnay waxbarashada caafimaadka biyaha amniga intaba wixii aan ballan qaadnay waaye annaga haddaan nahay dowladda koonfur galbeed 18 degmo 3 gobol intaba waxaan ka ballan qaadnay intaasoo adeeg bulsho inaan gaarsiino oo fulino insha Allah Dinsorna number 1 ay ka tahay abaalmarin bay u heli doontaa degmooyinka ugu horeeya soo gaarsiinayna noqon doontaa waxaan rabaa inaan mar kale dhiirigeliyo dhismihii golaha deegaanka
siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka mid tahay inaan daadejinno maamulada si loo gaaro isku filnaasho iyo wada lahaasho iyo laxjeclo gooni ay u helaan dadka deegaanadan degan koonfur galbeed degmo kasta oo ka mida degmooyinka koonfur galbeed waxaan ka soo gelaynaa golo deegaan oo looga dayan doono sidaa quruxda badan oo loo dhisay degmada diinsoor maamul kasta markaan samaynayno waxaa halhays noo ah ku dayo degmada diinsoor sida degmada diinsoor loo dhisay u dhis halhayska annaga iyo sloganka annaga kaasuu noqonaya